salaamullaahi calaykum. rag badan ayaa gees marsan in lamaanayaashooda u muujiyaan falal muujinaya kalgacayl, qaarkood maba garanayaan halka qaar kalena ay iska ilowsan yihiin. haddaba waxa uu janaalkayagu kuu soo koobayaa habab romantig ah oo ay haweenku aad u jecel yihiin. dareensiye in mar waliba ay tahay xeendaabka noloshaada, kaagana muhiimsan tahay shaqada iyo dhammaan asxaabtaada. ka dhig baqaarkaad sirtaada ku xariiso, u sheeg riyooyinkaada mustaqbalka aad leedahay dhanka shaqada iyo noloshaba. ka dhig inay kaala qayb qaadato oo ay wax ka dhisto riyooyinkaada iyo rajooyinkaada mustaqbaleed. u raac goobaha laga adeegto. waxa baaritaan uu janaalkayga uu sameeyey lagu ogaaday in haweenku ay aad uga helaan arrintaasi. waa la dareemi karayaa in aadan heli karin inta badan waqti inta ay dukaamaysiga ay ku jirto oo aad kula socoto, balse u dareen in ay tahay arrintani nafhuris aad iyada u samaynayso. ha iloobin munaasabadaha sida taariikhda guurkiina, dhalashada carruurta. ogow in aad ilowdid xilliga guurkiina waxay haweenku la mid tahay yasid dhanka jacaylka ah iyo in aadan qadarinayn ee nin yahow aan xariifka ahayn. munaasabadaha xasuusta idin leh weliga ha iloobin. ammaan ha iloobin inaad u sheegto in ay aad ugu qurux badan tahay wixii haween aad horey ula soo sheekaysatay. waa ay ku rumaysanaysaa, markaas ayay bilaabaysaa inay hadalka liqdo. xishood dartiina waxa ay la dhacaysaa in ay ku mahadceliso. indhaheeda fiiri marka aad la hadlayso, waxaad ku arkaysaa arrin kaa yaabinaysa. haddaad ogaan lahayd fiirinta indhaheeda in dhankeeda wax waliba ay uga qiimo badan tahay. fiirinta indhahaada waxa ay ka dhex arkaysaa ixtiraamka iyo jaceylka aad u hayso. kaga nixi hadiyad aysan filanayn. waa nooca romantika ee ay haweenku aad u jecel yihiin. inta aad dadka hortooda ku ammaanto una muujiso jaceylka aad u qabto, tani waa markhaati ma doonto inay farxad midii ugu dambaysay ay gelayso. haddaba nin yoo noqonin jaceylka u bisil oo munaasabad iyo bilaa munaasabadba qabso gacanteeda. taasi waxa ay dareensiinaysaa deganaansho iyo raaxo. marka ay oynayso oo ay jiraan wax ku qasbaya arrintaasi, ka tirtir ilinta oo dhunko dhabanadeeda iyo gacmaha, una muuji inay tahay nimco alla subxaanahu wa tacaala uu kugu mutaystay. khiyaartana daawanaysaay warbixintayda gaarka ahayd ee arrimaha bulshadana waa naga intaa. fadlan haddaad ka heshay maqaalkaani la sii wadaag asxaabtaada. sabskraib dhee janaalkayaga, weliba gambaleelka digniinta dooro si mar waliba aan warbixin soo dhigno uu kugu soo gaaro qaab deg deg ahi. sidaa iyo fii amaanillah.